asalaamu calaykum. qisadani waa qiso cajiib ah. nin oday oo caaqilaya muddo xanuunsnaa kadibna maalintii dambe ayaa wuxuu dareemay inay geeridii soo hayso. dabadeedna wuxuu yaray wiil yar uu dhalay, wuxuuna ku yidhi, wiilkaygii waxaa laga yaabaa in maalin maalmaha ka mid ah aan geeriyoodo. waxaan kaa doonayaa ma aan rabaa geeridaasi hadday ii timaado inaad ku samirto dulqaadna yeelato. tan kale waxaan kaa codsanayaa marka lay dhaqo ama maryacadoo karfana laygu duubi rabo inaad ii geliso lugaha mid ka mid ah sigsaantayda ama shuraabad, kuwaasoo aan kabaha ku xihan jiray. intayna muuqaalka bilaabeen ka hor, halkani waa kanaalka iftiinka. magacayguna waa diino xuseen shacab. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. maalmo yar kadib, ninkii odayga ahaa wuu dhintay ama geeriyooday. markii meydka la dhaqay ama karfanta la saari rabo ayaa wiilkii yaraa wuxuu soo xasuustay dardaaranka aabbihiisa, wuxuuna la soo orday sigsaantii. ninkii meydka dhaqaayay wuxuu ku yidhi, lugaha u geli inta aadan karfanta ku xidhin. ninkii meydka dhaqaayay ayaa ku jawaabay, wiilkaygiiyow, arrinkani lama oggolo. qofka meydka waxaa loo xiraa keliya karfantiisa sida ay qabto shareecada islaamka. kadibna wiilkii ayaa ku yidhi, adeer, aabbahay ayaa igala dardaarmay inaan sidan sameeyo oo u xidho shuraabadda, waan ku baryaa ee u xidh. ninkii meydka dhaqaaya ayaa yidhi, arrintani shareecada islaamka ma waafaqsana. haddii aad rabto inaad ogaatana weydii culummada. wiilkii yara ayaa u tegey nin sheekh oo caalim ahaa, wuxuuna weydiiyey in shuraabadda loo xidhi karo qofka meydka ah, kadibna sidaa loogu duugi karo. sheekhii wuxuu u sheegay, qofka meydka waxaa loo xidhaa oo keliya karfanta cad, dharkiisana wax raacaya ma jiraan. wiilkii oo yaaban ayaa waxaa u yimid adeerkii la dhashay aabbihii, wuxuuna u dhiibay warqad. kadibna wuxuu ku yidhi, warqaddani waxaa ii dhiibay aabbaha, wuxuuna iga codsaday inaan ku siiyo kadib markuu uu geeriyoodo. wiilkii warqaddii ayuu furay, waxaana ku qornayd sida tan: wiilkaygiiyow, waad aragtaa wax hanti aan ka dhintay oo dhan maanta. waxay ii diidan yihiin inaan hal sigsaan ama hal shuraabad oo keliya aan ka qaato. waxaa la ii ogolyaha oo keliya karfantaasi cad, adigana maalin ayay kugu imaanaysaa booska aan hadda joogo. sidaa darteed adduunyada yaysan kula tegin. waxaad maanta haysato beri kuma raacayaan. hantida aan ka tegay u qarash garee ama u isticmaal sida ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli kaaga yahay, oo ku bixi xaqa lagugu leeyahay sida sadaqada iyo waajibaadka alle subxaanahu wa tacaala ku saaray. wiilkii yaraa wuxuu garowsaday hadalka qiimaha badan ee uu aabbihiisa ugu tegey. waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. haddii aad ka heshay laayg saar, siina gaarsii saaxiibadaada. wixii tale iyo fikirahna inoogu reeb qaybta kommentiga. intaynu ku kulmi doono kani muuqaalkiis xiga. fii amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.